عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan saaxiibeel soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena rayuurinta dadweynaha magaalada Burco halka laga daawan soo burdhab TV aan waxaan xamdi Cabdilaahi dadweynaha magaalada Burco soo wadin doonaa su'aalo dhigan sidan hadalku shalay ka soo dhay boqor Cismaan oo Burmadow balse warkaan bulshada heer Burco ay wadin doonaa soo dhawaada magacaaga walaal magacaygu waa Khadar Caabir Raage hadda ma asantii walaal su'aashan weydiinay xaraansa hadalada ka soo dhay boqor Burmadow soo aragtaa walaal aad iyo aad baan boqorka u taageersanahay boqorka iyo salaadiintaba aad iyo aad baan u taageersanahay marka wixii ay soo jeediyaan waa nagu waajib iyadoo waajibka ilaahay leeyahay oo faralka uu nagu waajibiyey haddana wixii boqorku soo jeediyey waa nagu waajib mar walbana dagaalka iyo wixii soo jeediyey waa taageerina boqolkiiba boqol waan taageerina xukuumadana waxaan leenahay damabdaaga cadde ila waxba ka xuno qabo xaggan qabo waa naga imanayso tii hore tuugadahayd baa wax lala cuni jiray wax lala baan jiray wax odhan jirtay tan way hurdaay xagga way hurdaay qabowgeesa boqorku mabdaaga u cadeeyay xukuumadana cadde baan leenahay dagaalka dhulbaantana waa nagu waajib boqorku wuxuu soo jeediyana waa taageerina mar labaad haddii SSB iyo SST loo baahan yahayna de waa samaynayna waa soo tubaynaa nimadii diyaar baan leh yaasaan leenahay idinkana aad dhawahay magacaaga aniga Prince Abbas baa la yiraahdaa aad bad maasantay page-keen ku soo dhaweynaya su'aasha waxa ka horaansa hadalladii ka soo dhay boqor Cismaan oo Burmadow soo arkay ma taageersanay waxaan u aragnaa in dhulbaanto xoog lagu qabto dhulbaanto waxaan Burmadow waan taageersanaa mar kastana waan taageersanaa waa boqorkii Ilaahay baa boqorahe waa boqorkeeni ina dhulbaante waxa loo dhigay gogol nabadeed wax kasta waa lagu la hadlay waxa lagu maxaabiistaan isdhaafsano lacag kala dhisay nagaba iibiya dhulbaante waa loo taaglaayay dhulbaantena gacan lagu qabto oo maxaabiista laga soo qaado oo Soomaaliya waxay talo tuso iyaguna waa Soomaaliya lagu daro ayaan ku baaqayaa haye maxamed aad baan ku soo dhaweynay soo page-kayga su'aashan waxa xaraansa hadalkii boqor Burmadow ka soo yeedhay saad aragtaa boqor Burmadow hadalka ka soo yeedhay sida aan u arko fikirkayga waan ka dhiibanay boqor Burmadow waan taageersanay waana boqorka Afrika laakiin sax ma dagaal ku qad dhulbaanta sax kuma taageersani dhulbaanta dagaal laguma qaban karo hadday Somaliland dalku waa Somaliland in lala hadlo waxay xaq u leeyihiin la siiyo la soo dhaweeyo ayagu ogolaadaan in yoocada la tago ayaa lagu tagi karaa dagaal cidna laguma muquunin karo waxaan xusuustaa madaxweyne Cigaal wuxuu ku jiray dhulbaante kuraasidiina ku fadhiya Somaliland baatiin xoogna muu dhaafin jirin waayo si fiican buu yaqaanay dhulbaanta markuu ogol yahay in yoocada la tago un baa la tagi karaa xoog military waxba laguma qaban karo boqorkan se waan taageersanay sidiisa kale madaxweyne waxaan fariin u dirayaa dadka nabadgelya deeqda dhulbaanta iyo yoocadana nabadgelya lagu keeni karaa oo la yiraahdo waxba la wada leeyahay wax wada qabsano xoog military waxa leeyahay madaxweyne waxba laguma xalili karo iska ilaali hadda Soomaad fahmay dadka nabad baa deeqda nabad ugu baaq hadday waxay la qabsanayaan dhulbaanta waa la tagi karaa yoocada laakiin lama muqulin karo dhulbaanta سلويني ولا aad baan u walaal aad iyo aad ولا سؤال حيرانسا هذا ka soo dhay boqor Cismaan oo Burmadow soo arkaysi boqorkeel oo hadda inuu awood u galo Soomaaliya soo awood u galo malay horta imka gobolada Sool yalla saacad anu sidaan imka rajaahan saakin wax soo noqonay lama kaaniga laba siyaaboodba waxaan ku soo noqonayn marka dagaal aad iyo aad u qaraar been dhex marayo ku been dhex saddex gudihiisi ayaa dagaal dhex maray sababta meesha taalan waxa weeye ma hab siyaasadeed ilaahay oo iyaga kala furo aynu hab siyaasadeed ku helno si awood maanta daaynu sheegan karno in muqonan karno waxaan leenahay xuduudaheena maanta ay deganaayeen oog iyo sanaag arino xidha wixii inoogu yimaadana aynu iska celino la ku dagaalano dhaqaaq dadbiya awood damba sheegan aynu markaa la doonayno yaani jirin baa leeyahay boqorkana waxa leeyahay isagu dagaal gali ma isagu waa guri ay siida u fadhiyaan carruurta naga waalinayo halkaas noo fadhiyaano halkaas liinta noogu cabiyaan carruurta cid dambe dagaal qaadayna ma jirto Soomaaliya nin walba intuu haystaa ka taliyaniyo ayaan ugu aaminsanay soo dhawaale magacaaga walaal waan ku dhawahay magacaygu waa Xaafid Xanjaan aad bad maasantay walaal page-keen ku soo dhaweynaya Burdhab TV su'aasha xaraansa hadalladii boqor Cismaan oo Burmadow ka soo yeedhay soo arkaysi wallahi hadalada ka soo yeedhay boqor Burmadow kulay dhowr arrimood baa ka soo yeedhay dhowr hadal mid wuxuu aragaan saynee bad la baxay waqooyi bari midna mid inaga gudaheena buu haayo kaga hadlayay siyaasadda arrimaha gudaheena wasiirka iyo taliyaha ciidamada booliska taa kale anigu waxaan ka hadlayaa untaa bariga ku saxsan yahay waxaan la qabaa aragtidii uu yiri inaan warcad shalay toolo ku hadlayay wixii xoog lagaaga qaado xoogun baa lagu soo ceshtaa
muu weynina ilaa la gowracin sicirka maarkaan baa la yidhi maanta marka halkaan nayloo soo fadhiisto berrina burcun baa nayla ku imanaya iyo hargeysa marka inaan wax iska celinno waxaan iyaheenna tusno ayaan doonaya anu waan la qabaa aragtida ah calaykum asalaam soo dhawaad aad maasantay walaalo beejkeen ku soo dhaweynaya su'aasha xiraansa hadalladii shalay ka soo yeedhay boqor cismaan oo burmadow soo arkaysa waa hadallo way ahaayeen wacan oo la soo dhaweyn karo aad iyo aad baan u soo dhaweynayn hadallada dhulbahantay ha aad waan ugu soo dhaweynaynaa inuu ku baaqo dagaalka dhulbahantay waayo nimanku way soo fataheenba waddanka way soo qabsanayaan in laga hortagaa weeye si degdega waa taageersana ha aad baan maasantay walaalo magacayga waxaa la idhaha maxamed jibriil su'aasha xiraansa soo arta hadalkii ka soo yeedhay boqor cismaan oo burmadow dee buurmadow maamulka laascaroodna isagaa dhistay markii hore oo isagaa samaystayba oo maamulkii samaystaybu haayee ciidamadana jebiyey marka boqorna maahe waa ninkaas yeelyeele dilaalka hadde marna xamar buu dilaala marba meel dee maaha boqor waa ninka marba carabta dilaalay marba meel dilaalide soo dhow walaal wala wandhawe magacaygu waa cabdirashiid siciid ogle oo ah qabiilka faalooda siyaasadda waaye cabdirashiid aad baa mahadsan tahay su'aasha waxay ka waranaysaa hadalladii ka soo yeedhay boqor cismaan oo burmadow soo arkaysa niyow haddaanu kala qaadno hadalla ninkaas ku hadla horta waxay ahaayeen hadalla dhaba oo lagu dhaliilaya xukuumadda laakiin niyow boqorku hal baad moodaa inuu yaraa dheeg maray taasoo wuxuu sameeyey personal attack wax la dhaho taasoo taagereeyey labada nin midna uu yahay taliyaha booliiska midna uu yahay wasiirka arrimaha gudaha taasoo ma fiicnayn in laba qof personal attack lagula kaco dagaalkaas horta waa sax in jamhuuriyadda somalilan ay si lama filaana uga jawaab celiso waxa uu xasan gurgurte uu ugu baaqayo iyo colaadaha uu ka oolayo bariga gobolka sool soo dhow walaal magacaaga cabdiqani ismaaciil baga aad maasantay walaal su'aasha waxay ka waranaysaa hadalladii boqor cismaan burmadow ka soo yeedhay adigu wallaahi aanu dagaalka kuma raaxsan nimagaas dagaal hore loogu qaaday dad dagaal kusoo noqonaya uufkeenni iyo raggeennii way ku dhammaadeen aanu dagaal ma aaminsanin nimagaas kusoo noqonaya siyaasadnimanay kusoo noqonayaan magacayga maxamed bale maxamed aad baad maasantay soo aragtaa daanta bariga wax dagaal lagu qaadaya ma jirto yaan dagaal lagu qaadin baa wanaagsan nabadda iyo kala dambaynta iyo wax walba nabad wax dhaabaa ma jiraan qoadi waxa ma jirto wiilun baa ku dhinto bilsiyaad bare wiila kuma dhasho waxaan marka irraa waa salaamaya madaxweynaha waddanka waa salaamaya hadalkaa boqorka ma taagsin waxaan somalilan u sheegaya war adduweynaha hadaad ku wareegaysaan tiraaf baan goonaynaa waddankiina ka shaqaysta markaasaa laydin wara hoos imanaya etoobiyana waxba idinma hayso qadarna wax idinma hayso war waddankiina ilaashadoo nabadgelyada ku dhaqmoo sarac geliyo waddankiina ka shaqaysta baan leeyahay u dirayaa balan walaalaha doo dhawaa xuseen maxamed waay dana waad bad maasantay su'aasha xiraansa boqor cismaan burmadow hadalladii ka soo yeedhay soo arkays waxaan u arkay hadallo maanta waxa weeye haddii la isku raacsan yahay waxa weeye wax ka bedel ku samayn lahaa dalka xadka somaliland ayaan dee u arki lahaa marka waxaan leeyahay dee in la isku raaco ayaa dee waxa weeye horta ka wacan in waxa weeye wax la iska weydiiyo in dee si buuxda dhammaan reer somaliland meel kastoo ay ku sugan yihiin inay isku raacaan ayaa dee waxa weye waddankii dee waa arkaysaano dee waxa weeye maamul baa dee laga dhex sameeyey soomaaliyana waxa weeye ay dee waddo oo aanay cid kale dee dabada ay soomaaliya dabada ku hayso dee marka waxaan leeyahay dee fadhiga ha laga kaco wixii reer somaliland waxa weeye dee ka soo horjeeday waxa weye hadalkaa boqor burmadowna ka soo horjeeday maamulka dee waxa weye doonaya ku kalsoon dee waxa weeye tix yaro murtiya baan leeyahay waxaan leeyahay war wixii reer somaliland waxa weeye dee cadowga reer somaliland waxa weye wax magaratada ah waxaan leeyahay war ragga loolama tago waxaanu diidnay waa hore dadna waa la dhowraa haddaad daris wadaagtaan nim adduunyo wada leedihiin looma duur xiro danyaro laguma tiiqsadiyo maata taag dara xeer iyo qowl iyo nimay deeni qabanayso dembi waa ninkii kala qabin laguma daafaco nimcada eebbahay ulkumay uunka wada deeqday
sharciga iyo diinta waa laga dambeeya lama dilo walaalka hadduu daawo ku sido dee markaa waxaan leeyahay reer somalilan dee madaxweynaha somalilanna waxaan leeyahay dee wadankii dee kamuu hadlin anagu waxaanu nahay shacabkii reer burceed doortay baan nahay reer somalilan waxaana noogu dambeysay markii uu burco maalintii waxa weeye uu dee musharaxa ahaa ee waxa weeye ololeynayay ayaa noogu war dambeysay madaxweynahana waxaan leenahay war adigoo waxa weeye madaxweynaha ayaanu ka jecel lahay waxa weeye inaad dee waxa weeye gobolkii togdheer inaad noogu timaado aan kugu soo dhoweyn dadkii ku doortay waxa weeye dee ku ololeeye ku codeeyana waanu dee sidii aad noogu iman jirtay madaxweyne kasta oo reer somalilan markaa waxa weeye loo codayaabuu dee galbeed soo dhaafi maayo markaa burca waxa weeye aad bay dee madaxweynayaasha uga cabanaysaa madaxweyne kasta oo reer somalilan wadanka dee waxa weeye dee wadanka waxa weeye madaxileedkiisa dee qabta dee marka waxaan leeyahay gobolkii togdheerna kaale waan kugu sugaynaa dee waxa weeye gobolka soolna wax ka qabo baan leh